takoor diimeed. Lamine Yamal oo si kulul uga jawaabay takoor diimeed oo lagula kacay kulankii Spain iyo Egypt. Xiddiga da'da yar ee Barcelona Lamine Yamal ayaa la sheegay inuu aad uga niyad jabay falal ka dhacay kulankii xulalka Spain iyo Egypt. Wararka ayaa sheegaya in taageerayaal ku sugnaa garoonka ay ku dhawaaqeen heeso ku lifaaqan takoor diimeed, taasoo si gaar ah u taabatay Yamal oo ah xiddig Muslim ah. Dhacdadan ayaa si weyn u dhalisay caro iyo cambaareen, maadaama ay ka hor imaanayso qiimka ixtiraamka iyo midnimada ee kubadda cagta. Yamal ayaa ciyaaray qaybtii hore ee kulanka, balse kadib wuxuu baraha bulshada ku muujiyay sida uu uga xun yahay dhaqankaas, isagoo si dadban uga hadlay muhiimadda ixtiraamka iyo wada noolaanshaha. Arrintan waxay mar kale iftiimisay dhibaatada takoorka ee weli ka jirta garoomada, iyadoo la filayo in hay'adaha kubadda cagta ay si adag uga falceliyaan si looga hortago falalka noocan oo kale ah mustaqbalka. baraq wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. wixii aragti ah ama fikrad ah oo lagu sameeyay takoorkii diimeed ee Lamine Yamal, qaybta hoose ee commentina ula wadaag. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.